السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليق سو دوادا meel walba aad joogtiin asxaabay channelku waa channelkiini waa channelka qurux dumar ku soo dhawow haddaad igu cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay fadlan waxaan ka codsanayaa channelka inaad subscribe saarto like saarto sii share gareyso haddii aadan igu cusbeen ood hore ila joogtana aad ayaa u mahadsan tahay soo dhawow ayaan ku leeyahay mar koowaad iyo mar labaadba asxaabtayda qaaliga aan jeclahay asxaabay sida arkaysaanbo shaashada sawirka noo saaran waa timaha ayaan rabnaa in maxaa kaga faa'iideysano timaha hadii ay ka jajabaan hadii ay ka siibmaan hadii ay ka daataan hadii ay timaha rifrif ka yihiin oo timahaaga aysan qurux badnayn dhammaantoodaba waxaad uga faa'iideysaa insha Allah kareemkaas oo timaha ku bixinayo jajabka siibka daadashada waxaasoo dhan aad maxaa uga faa'iidi doontid oo adiga gurigaaga ku subsanayso alaabaha aad ka soobinayso ama gurigaaga ku yaala ama suuqyada kugu dhow ayaa ka helaysaa waa waxyaabo iska easy oo cid walba ay heli karto marka insha Allah timahaaga hadii ay maxaa aad maaro u weysay ay shalada ka soo raacayaan waxyaabaha soo dhan insha Allah sideedaba timaha waxay u baahan yihiin in la daryeelo in la nafaqeeyo ay u baahan yihiin marka insha Allah asxaabtayda waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin hadii Ilaahay idmo insha Allah mar walba waxaan jeclaystay channelka qurux dumar official 2 waxa aan soo geliyo halkan hoose linkiga inaan idin soo dhigo marka insha Allah linkiga hoos ayaa idin dhigayaa qaybta commentiga ayaa idin dhigayaa insha Allah halkaas ka daawada halkaas igala socda halkaas kalena igu soo biira marka saas daraadeed waxaan jeclaystay mar walba inaan idin la wadaago halkaan dad ayaa ku jiro oo halkaan iga bartay halkaasna aan aqoonin marka saas daraadeed isoo raaca halkaasna imaada insha Allah halkaan sidoo kale haddaad igu cusub tahay ida laftigeeda subscribe saar waa hore ayaa channelkan igu dambeeyay ayaa ma dhaweed ayaan xogaayo yar soo dhigay marka saas daraadeed insha Allah waa rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin maxaa team isqurxin ayaan nahay oo macnaha mar walba waxaan jecelnahay teamkeenan inaan timaheena si dabiici aan ku qurxino sababtoo ah timaha uma wanaagsano kiimiko uma wanaagsano mar walba timaha waxa wanaagsan in la nafaqeeyo nafaqada hadana tinta kaliya hadana ma ahan waxa wanaagsan inaad maxaa cunto isku dheelitiran aad qaadato marka insha Allah saliido ku wanaagsan timahaaga mari waxaa jira saliido adiga nafka jirinayo oo calaashan timahaba ka jarjaraya calaashan sisan ka wada timaha ay ka jarayaan markii aad isdhahdid timahaaga marso saliidan way fiican tahay ayaga dhib u geysanaya marka saliid fiican oo tintaada u wanaagsan oo tinta ka jarjaraynin ayadana maxaa way wanaagsan tahay inaad raasato marka asxaabtayda qaaliga kareemkan aad uga faa'iidi doontiin aad uga faa'iidi doontiin waxa idin soo dhigayaa linkiga qaybta hoose oo commentiga waa idin kugu soo celinaya asxaabtayda qaaliga aan jeclahay halkaas haddaad igu cusub tahay halkaas subscribe isoo raac fiidiyoyaal fara badan ayaad waxaad ka soo helaysaa linkigaas oo ama timaha ahaado ama wajiga ahaado ama maxaa korka dhan ha ahaado hadii aad rabtid waa inaad si dabiici isku cadeyso ama maxaa timahaaga aad ku qurxiso ku bixiso ku dheeraado ay dabada ku tagaan insha Allah wax walba waa Ilaahay xaqiisa Ilaahay haduu yiraahdo insha Allah asxaabtayda aad u mahadsantihiin soo dhawaada idin leeyahay reer qurux dumar halkaan ayaa marka hore ka bilownay marka waxaan u gudubnay qurux dumar 2 markii kan oo maxaa oo naga halaabay hadda uu noo wanaagsanaaday maasha Allah tabaarakallah marka waxaan arkay in maxaa dad badan ay ku soo biirayaan soo dhawaada idin leeyahay mininkiina waay asxaabtayda ha ismartiyeenina insha Allah waxa inoo balanay linkiga hoose ee qaybta commentiga inaad ka daawato fiidiyoga insha Allah waan idinka sii tagayaa waa anigoo qurux dumar ah waa idinka sii tagayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqod dambe oo xiiso leh fiidiyogan fiidiyoga xigo inta laga gaarayo insha Allah